runtii markaanu akhrinay riboorka ama warbixinta ay soo saareen guddiga raadinta IGAD reer Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland waxay arrinta u arkayeen arrin dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhaxayso inay ahayd kiiskii Djibouti la geeyey laakiin markaan aragnay jawaabta guddiga bixiyey waxaan ogaanay dacwada nuxurkeeda dowladda Soomaaliya ay u gudbisay IGAD inay ahayd dacwad dowlad goboleedka Jubbaland lagu dacweynayay looga been sheegayay lagu xamanayay waxa ay shuqul ku lahayn taasoo nasiib darro ah nin dowladdiisii qayb ka mid ah ka been abuurayo oo IGAD iyo golayaal caalami ah dacwad been geynayay مثلا waxaa ka mid ahaa beenta laga sheegay ciidanka daraawiisha Jubbaland oo ciidan xeer iyo nidaam ku dhisana 15 jirsaday AMSOM iyo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wada howl galaan inuu ku tilmaamayay ciidan jabhadeed oo been laga sheegay waxa kale oo la yaab lahayd sonkorta caadiga ah oo Kismaayo ka soo dugta xabarna ka soo dugta in dacwada qaarkeed riboorkay ku jireen in Jubbaland lagu dacweynayo sonkor bay maaragtay ka ganacsataa iyo dhuxul iyo waxyaalo aan jirin waxa la yaab lahayd markaan sii fiirinay wasiirka warfaafinta shal hadalkiisa ka mid ahayd Buusaari waxa ka baxeen Faafaxdhuun Buusaari iyo Faafaxdhuun horta waa tuulo hoos tagta degmada Baardheer Buusaarna waa tuulo hoos tagta degmada Ceelwaq markii muddo sanad iyo barra yaa golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxay AMSOM u gudbinayeen in relocation ciidankaas ay sameeyaan oo degmada Ceelwaq ay tagaan maxaa yeelay Ceelwaq oo degmo ah oo 100,000 oo dad ku nool yihiin oo iskuuladii xiran yihiin oo ammaan darro noqotay shilkii Ceelcadda ka dhacay kadib ay shabaabka access u heleen baa waxaan lahayn war ciidamada AMSOM intay tuulooyinka joogi lahaayeen maadaama ay tahay inay ammaan ka shaqeeyaan oo bulshada wax u qabtaan degmada taga inuu degmada shabaabka maamulo oo ammaan noqon weydo oo dadkii waxbarashadii iyo adeegii iyo bulshada waxba la qaban waayo ciidamadina tuulooyin yar intay godad ka qotaan iska degnaadaan macquul ma shirka marka amniga dowlad goboleedka Jubbaland yaa ka mid ahaa qaybta 43aad baa ka mid ahayd codsigii aanu lahayn dib ha loo dego oo degmada Ceelwaq AMSOM waa inay tagtaa bay qayb ka ahayd xaajin baan ogaan xabrimo kala dabaalay marka dad shalay yimid oo sidii wax noqdeen iyo sida xaaladda ay u socotay aan la soconin ba maanta indhaha faraha dadka ka gelinay mushkiladda la arkay wartuulooyinkana ku filan oo ka howlgalayna oo shabaabka kula dagaalamayna laakiin magaalooyinka waaweyn oo AMSOM mandatekeeda ahayd inaad ilaalisaan iyo xarumaha dowladda taga waan anagana ku riixayn intaas ayagana maanta waxay ka dhigeen eed bay ka dhigeen ciidamada AMSOM oo Kenya Ceelwaq tagay qayb ka mid ah Baardheer ay joogeen waxaan ku niri ciidanka iyaga Soomaaliyeed iyo ciidanka AMSOM oo Itoobiya ku filan ilaawan Baardheer meel kale oo cidlaha Ceelwaq ba jirtay qayb ka qaato waxyaalaha la yaab kale oo warbixinta maaragtay aan ogaanay waxay ahayd in Jubbaland la dacweeyay laakiin Jubbaland cidna ay xaq u siinin inay isdifaacdo igadna in guddiga xaqiiq raadintii uu Jubbaland la tashanin uu imaanin uusan weydiinin waxyaalaha lagu eedeynay inay wax ka jiraan dowladdiina matalaysayna waxay beenta ka sheegaysaa ay tahay state ka tirsan dowladdii dhexe oo xubinka iyaga madax u yihiin inay been ka sheegayeen dacweynayeen marka taas annaga xaq noolama siinin inaan isdifaacno guddigaanu markii la qabtay oo xuduudda ay tagayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan Soomaaliyeed oo Kenya tababarayso jabhada inay gudaha Kenya haysato anaga waxaan ku niri haddaan arrintu lug ku leenahay wax naga warsado Muqdisho maada xamar baa waa tagteen oo waa tal dowladda la kulanteen may waxay yiraahdeen Kismaayo maada waxay nagu yiraahdeen may waa heer Muqdisho iyo heer Nairobi laakiin markii riboorkii soo baxay baa waxaan aragnay qodobada ay dowladda federaalka Jubbaland ku dacweysay
waa nin isdacweey weeye nin isdacweeyey isaga dowladdiisa dacweeyey cidduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey haddana xaq loo siin inay ka jawaabaan weye laakiin markaanu aragnay warbixinta waxaanu aragnay warbixin laga fikiray dhinacyo badan la wareystay si qiimo leh oo mug leh loo galay soomaaliya degenaansho loo galay dad soomaaliya saaxiib la ahoo walaal la ah ay hoggaaminayeen baanu aragnay oo dhinacna waxayna wayna qancisay marka hadday maaragtay sida ay ku soo baxday qodobka kale oon ka hadlayna waxaa weeyaan beled xaawo haddaad adigu u helin weyda xeerka iyo sharciga aad ku dhaaratay haddii cidna waxba ma tiri karti maanta waxaan ognahay inay wasiirro soomaaliyeed iyo madax soomaaliyeed xamar laga diray oo halkaa aadeen ma xaq baa dowladda federaalka soomaaliya yaa accountable ugu ah ama dhigeeda u ah jubbaland waa statekii hoggaankiisa weyi marka inaad shaarkii soomaaliya iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqaalihii iyo hubkuu caalamka ku siiyey aada soomaaliya u adeegsato oo wiilisha soomaaliyeed oo shabaabka la diriray adiga aad madaxdu u ahayd aad intaad qabataad baraha miidiya hortooda ku jirdisho oo tidhaha been sheega waxaa weye wax la yaab leh wey wax laga xishooda wey maxaa dhacay marka ciidankaas muddo dheer buu halkaa fadhiyey waa ciidankii deegaanka xoreeyey hubkaasaa loola yimid deegaanadoodii baa laga saaray shabaabkii baa loo beylaheeyey iskaashi waxaa dhacay iyo wadahadal shabaab iyo qolada joogta deegaankaas oo xamar laga keenay magaaladii baa lagu maaragtay dhibaato lagu sameeyey markii magaaladii aan loo naxaynin oo hobiyaal iyo madaafiic ay sameeyeen baa ciidankii amar lagu siiyey inay ka baxaan deegaankii ay ka soo duuleen ku noqdaan maxaa dhacay magaaladii bay belelqaysteen ciidankii jubbaland daraawiishtii markaan ka saarnay qoladii soo hartay waxay noo sheegeen magaaladii baa la belelqaystay dadkii baa dib loo laayey waxyaalo badan oo mushkiladaha weeye waxaan waa wax taariikh ah meel bay fuuli doontaa waa taariikhan hori soomaaliya weli loogu arag waxa dhacayo waa nin lugtiisa midig goynaya weeyo maaragtay jirkiisi qaybo ka mid ah la dagaalamayo goynaya waxaa kaloo maaragtay golahu guddigii doorashada heer state waa la iclaamiyey waa ugu mahad celinaynaa madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ba go-aanka ay qaateen laakiin caqabaddii waa halkeedii caqabadihii doorashada ku hareereysnaa waxaa loo baahan yahay inta laisu tago oo madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyad qaato oo raggii iskugu yeero golihii wadatashiga qaranka in caqabadihii taagnaa xal loo helo waxaan waxba kuu taraynin maaha inaad wakti ku dhumayso mas-uuliyadda qaado madaxweyne shir iskugu yeer caqabadaha hortaagan doorashada ha la xaliyo dalkan doorasho ha la geliyo haddii kale mas-uuliyad xumaa imaan doonto fowda imaan doonto waktigii hay-adaha tasuuriga hawaa dhammaadida imaan doonto mas-uuliyaddan adaa qaadayo cid kale oo dhabarka kula saaranaysa kuwa maanta xilka kugu ilaashanaya oo hareeraha kaa taagan oo kula talinaya oo wax iska celi wax diid ku leh wallahina mas-uuliyadda kula qaadanayn adigay mas-uuliyadda hooye iyo aabba u noqonay midda kale oo ka digayna waxaa weeyaan doorasho wada ogola laisku raacsan yahay wixii lagu heshiye waafaqsan cidda in la qabtaa la rabaa cidda diiddo oo